بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي صاحب يلا أريد مركب كواد أرضي إذن لا هي أرضي إذن لا هي وحواي وحي وانا وعدي وحواي مام فائسة يقضياش يجهري أي إذن سود مية وحن روا مركب إن أنا وحير أنا إذن كوجدرو أقونت يوحبر الشذا لبضع سقطب إن وحير أن كده وحبر الشذا سيد يذوب ودلال السمايو aqoontuna waa natiijadii laga kasban lahay waxbarasho iyo aqoon marka laga hadlaayo waxa jirto qodob lid ku ah waana midkaan waxa la yiraahdo qishka saaxiibayaal ardayda idin la ahay waa iswada ognahay alqishul haram walaakin laga maarmaana dhahnay laakiin waxa waaye qishku anigu waxaan ku tilmaamayaa inuu yahay qofka inuu u horseedayo shahaado aanan ka turjumayn wuxuu yaqaan hadda maanta imtixaanka aad qishto waraaqada lagu soo qoro 20 buundo 20 kaas buundo maskaxdaada ma aha 20 kaas buundo waa waraaqadii aad soo qortay iyo saaxiibka waxa weydiisay waay mid kalena waxa waaye in badan oo ardayda midkaan dugsiga dhexe iyo kamid ah aniga dugsi dhexe waa soo maray dugsi hoose waa soo maray dugsi sare waa soo maray waxaan isdhihi jirnay warqishka hadda hadeertan inta yar tahay aad wadwadid xoogaa maskaxdaada yar waa yar tahay hadda iska qish hadhow marka jaamacad dhigato iska deynaysa laakiin waxa idin sheegaya taas wax ka jira malahan maanta hadda qish isbartid biritoole xitaa adoo madaxweynaha wax waqishaysa aniga hadda jaamacad ma dhigtaa waxa idin leeyahay jaamacadda waa ka qish badan tahay xitaa iskoolada maxaa yeelay ardaydii jaamacadaha joogtay internet haystaan telefoon oo shaashadna way haystaan idinka hadda labadaasba inaadan haysan laga yaabaa waraaqadii waa la sawirayaa ChatGPT kaaga wada shaqeynayo saasa midkaan waraaqadii oo dhan looga shaqeeyay marka hadda isdhihaysid hadeertan inta yar tahay oo dugsiga hoose ama dugsiga dhexe aad joogto waa iska sii qishqish hadhow marka weynaata ka weynaanaysa qishka warqishku waa caado xun hadaadan hadeertan iska joojin biritoole iska ma joojin kartid marka saaxiibayaal waxbarashadu waa inaad wax akhriso waxbarashadu waa inaad dadaasho ingiriiska hala barto luqadaha midkaan ugu fiican oo kamid yahay af carabiga hala barto casharada iskoolka si fiican hala barto markastaba isdhisa waxa way markastaba maskaxdiina iyo garaadkiina inaad dhistaan isku dayeen maskaxdaadana ma buuxsamayso maskaxdaada ma ahan mid aan waxba qaadi karin sida ardayda qaar ay aaminsan yihiin war maskaxdaada inta aqoon adduunyada saarta hadaa ku shubtane ka buuxsamayso aragtiyadaas qaldan iyo qishka laga maarmo aad iyo aad ha looga digtoonaado hadeertan inta yartiin iska dhaafa hadda inta yartiin inaad dadaashaan isbara si biritool dadaalay aw noqotaan intaas ina idin kugu dalaa rabay waa mahadsantihiin Soomaaliya mustaqbalkeeda waxay ku xiran tahay dhalinyarada maanta waana anuka ishortaagan dhalinyarta Soomaaliya ee maanta mustaqbalka laga fikirayo anuka waay saaxiibayaal mustaqbal walba uu hagaagayo qiimo in lagu baxsho u baahan yahay marka aan nahay dhalinyarta Soomaaliyeed dadaal inaan bixino waay oo ah qiimo kaasoo mustaqbalkeena aan ku qurxisahayno dadaalka wuxuu ka bilaabayaa meeshan oo ah waxbarashadii waxbarashadana waxa u baahanahay hadaan nahay dhalinyarteena Soomaaliyeed ina si daacadnimo ah u barano wadankeena waa aragtaan cudurrada mar walba soo laabahayo hadee noqoto daacuun hadee noqoto cudurro kaleeto oo xil walba soo laabahayo wadankan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro dhakhtar ah gabdho iyo wiilal leh kuwaas oo wadankan badbaadiya si daacad ah oo midkaani daacadnimo ah oo ay naga go'an tahay ina wax u barana u baahanahay si aan u noqono dhaqaatiirtii wadanka badbaadin lahay wadankeena wuxuu u baahan yahay injineero dhanka dhismaha ka saaciido dhinac walba oo wadankeena ka burbursan yahay waxa dhisi karo waa qof aqoon leh xitaa dhanka siyaasadda marka fiirisid siyaasiga wadanka badbaadin karo waa siyaasiga wax bartay ee aqoonta leh ma ahan siyaasiga reer hebel ka soo jeedo ama siyaasiga hubka badan haysta ma aha siyaasiga wadankan dhisi karo waa kan wax bartay waay saaxiibayaal waxbarashada waxa u baahanahay inay naga go'naato inta ugu badan hadaan nahay arday aniga laftirkeyga arday ahay waa is ognahay waxa waaye xiliyada imtixaanka soo dhawiyo kale inaan wax akhrino ama mararka qaar kood aan wax qishnaa laga yaabaa laakiin taas waxay noo horseedaysaa inaan imtixaankii ka gudubno inaan shahaadooyin helno laakiin qof shahaado wato aan waxba aqoonin saaxiibayaal waxaan u baahanahay wadankeena inaan si ay ka go'an tahay aan wax u barano si aan wadankeena mustaqbalkiisa aan u badbaadino waxa aan aniga si gaar ah idinkaaga digayo waa qishka waa iswada ognaay waxa waaye walaakiin laga maarmaan taaganaay alqishul haram walaakiin laga maarmaan laakiin waa laga maarmaa hadaa go'aan dhab ah aad ka gaartid waa ka maarmaysaa
waxbarashadana waxaa waaye intaad iskoolka joogto haddaadan qishka geedka la dhahayo aadan iska ilaalin jaamacad haddaa gaartidna iskama ilaalihaysid haddaa is leedahay biritoole markaad weynaato fasal jaamacad aad fadhiisato markaasaa si fiican wax u barahaysaa waxaan ku leeyahay haddaadan haddeertaan qishka iska daynin biritoole iskama dayn kartid jaamacadda waxaa waaye qish ka weyn kan iskoolka ka jiro marka waxaa loo baahan yahay ardayga inuu haddeertaan iska daayo wax walbana waa baran kartaa maskaxdaada wax walba ay qaadi kartaa aan marka si ay daacadnimo ah oo ay naga go'an tahay wax u baranno aan isjeclaano aan iscaawino waxaa waaye midba midka kaleeto wuxuu u faa'iideyn karaa u faa'iideeyo macalinkeena aan ixtiraamno maxaa yeelay akhlaaq la'aanta wax lama baran karo waalidkeena aan ixtiraamno qof kastoo naga weyn aan ixtiraamno fasalka marka la joogo kana ag fadhiya aan ixtiraamno mas'uuliyadna aan iska saarno fasalkeena hadday noqoto nadaafad ahaan deganaanshaha fasalka hadday noqoto si guud iskoolka hadday noqoto mas'uuliyadna aan iska saarno warkiidin kuma sii badihay waa mahadsantiin intaan ku soo شبلد لو ديهاي ويلي قبيل لغا قون برشدو ايو سيمانتيهيو وحناني سيشليهاي مقدشو بلد لغو نستو